Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray Aadan Siiro oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa bulshada Soomaaliland guud ahaan ugu baaqay inay ka qayb qaataan daryeelka ilaalinta iyo hagaajinta guud ahaan xabaalaha dalka gaar ahaan caasimadda. Sheekha oo warbaahinta wareysi ku siinayay goobta ay ku yaalaan xabaalihii hore ee Xeedho ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka warramay in roobabkii lixaadka lahaa ee caasimadda ka daay ay khasaare gaarsiiyeen deyrka xabaalaha Xeedho. Sheekhu waxa uu ka warramay taariikhda xabaalahan iyo sida ay tahay in diin ahaan aynu u daryeelno waalidiinteena ku aasan xabaalahaasi. waxaana hadaladii Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray Aadan Siiro ka mid ahaa. halkan maanta aynu taaganahay waa xabaalihii hore ee Baqiic ee ay ku aasnaayeen dad badan oo khayr badan oo waalidkeennii ka mid ah oo carruurteennii ka mid ah oo hooyooyinkeen ka mid ah oo eedooyinkeen ka mid ah oo habaryaraheen ka mid ah. halkan Abaangaariya ku aasan Yuusuf Warsame Siciid baa ku aasan maayarkii hore intaasoo dadkeennii khayrka badnaa ee waalidkeen ahaba ku aasan. waa markii labaad nicmadii faraha badneed ee Ilaahayna siiyey ay wax ka soo gaadhaan xabaalaha. waa ogtiin deyr baa lagu xidhay xabaaluhu markii ay buuxsameen si loo ilaaliyo waalidkeennaasi iyo dadka khayrka badan inaanay dhibaato gaadhin. quruxda waa arkaysaan tigaad iyo geeda ka baxay oo arkaysaan. waxa kaliya ay tahay waa ilaalintii la ilaaliyay ee deyrkaasi dhowrka kiiloomitir aynu ku xidhnay waliba dhakadana si aan looga dhicin quraaradaha loogu xidhay. xabaalaha dhibaatada haysata waxa weeye cid wax ku bixisaa ma jirto. markii dumaan in laga shaqeeyaa la doonayaa kasru cadmi almayiti ka kasri xaya in lagu dul fadhiisto in wax lagu daadiyo waxaasoo dhan rasuulku calayhi salaatu wassalaam waa ka digay. xubin ka mida lafaha meydka oo la jabiyaa waxay la mid tahay buuri rasuulku calayhi salaatu wassalaam qofkii oo nool oo gacanta laga jabiyey ama lugta laga jabiyey. marka baaraka allahu fiikum. war xabaaluhu waxay u baahan yihiin daryeel iyo waalidkeenni meesha aynu ku aasnay. anigu runtii waxa weeye markii lay sheegay mar anigoo caafimaadka ku maqan waanu nimid waanu ka shaqaynay qaybtaasoo duntay. iminkana maalintii hore markii ay duntay maalintii labaad waanu oodnay. markii hore oodii waa la iska qaaday xoolaa lagu sii daayay. markii aanu ogaanay inaan xoolihii laga daynayn oo runtii waxa laga yaabaa hadhowna wax kala raaci doonaan ayaa waxay noqotay in degdeg xabaalihii dib diirkii loogu sameeyo. marka baaraka allahu fiikum. waxaan ugu baaqaynaa dadka khayrka badan leh war u gargaara ehelkiina muslimiinta oo waqfiga ka qayb qaata. saadka xabaaluhu waa 4 7 4 eber iyo 3 weey oo wuxuu ugu talagalaa marka ay dhibaato timaado in waalidkeena aynu badbaadino. inta runtii u dadaashay ee waqfiga u dadaashay iyo khayrkana aad iyo aad baa u mahadsantiin. wajazaakum allahu khayran.